waxaan ka turjumayay socdaalkaygii xalay annaga oo aan cidna u sheegin aan dadka iskala suuqaysanaynay oo social gargaysanaynay ee runtii sida qiimaha badan ee nabadgelyada leh noogu soo dhammaaday aad iyo aad baad u mahadsantihiin deganaanshahaas iyo nabadaas wanaagsan ee ilaahay idin siiyey waxaan ilaahay ka rajaynayaa in ay sii waarto insha Allah taala dadka reer Somaliland ee aan dariska tihiin waxa cusub oran maayo intii aan oran jirnay uma ku soo celinayaa waxaan ugu baaqaynaa mar walba islaamnimo walaalnimo Soomaalinimo waana inta inaga dhaxaysa wax kasta oo inaga qaldamay waxaan diyaar u nahay oo ay nagula socdaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer waqooyi bari in aan ku saxno hab miis korkiya iyo wada fadhi iyo wada hadal nabadeed oo aan colaad lahayn intaasi waa naga mabda isma beddesho mana isbeddelayso waa dadkeennii waa ehelkeennii waa walaalaheen waa wax laga xumaado dad Soomaali inay isdulmiyaan waa wax laga xumaado dad Soomaaliyeed inay isdilaan wixii dhacay hore iyo gadaalba ee aan habboonayn dhammaanteen waan ka wada xunnaa cid kastaba ha ku dhaco waxaa inoo furan oo keliya inaan horay uga soconno iska cafino ka wada hadalno isooga garawno taasaa inoo furan inagama jirto inaan sii taagnaano caatifada mar walba iyo emotionka inaan bararino oo sii cayilino oo dadka aan sii kala fogeyno oo reality-ga aan ka fogaano oo waxaan suurtagelayn aan isu sheegno taas xal inoogu iman maayo xalku wuxuu inoogu imanayaa reality-ga u socdaana madaxdooda hoggaamisa Somaliland waxaan leeyahay walaalahay geedigii la idin dhiibay reerkii meel aan sax ahayn baad u rarteen meeshaad u rarteen reerka waa meel qaldan dhammaan dadka Soomaaliyeed oo ay hormuud ka yihiin kuwa aad idinku madaxda u tihiin ee gobolka ku dhaqan ama Somaliland ku dhaqan hadday yihiin culimadii hadday yihiin siyaasiyiinta hadday yihiin aqoon-yahankii dadkii waxgaradka ahaa ee Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku dhaqan ay hormuud ka yihiin dhammaan ummadaha islaamka oo dhan iyo shucuubta islaamka meel kastoy joogaan dhammaan shucuubta rumaysan mabaadi'da bani aadamnimada ee damiirka noolna oo dhan ayaa arrintaa idinku diidan oo idinkaga soo horjeeda waad qaldanteen waxaase qaladka aad markii hore gasheen ka sii xun inaad ku sii adkaysataan wax aad doonaysaan Soomaali bay idinkala jirtaa Soomaali baa idin haysa walaaltinimadii ku soo laabta Soomaalinimadii ku soo laabta waxaan leeyahay walaalayaalow qaladkaasi waa dhacay waxa furani waa tawba iyo soo noqosho marka laga soo noqdo waxaan rabaa inaan dadka reer waqooyi bari marka la sheekaysto runtii kuwa kale dhinaca kale jira ee reer Somaliland aan la sheekaysto waxay soo baxday inay walaalayn for example
haddaan hadda inta halkan fadhida idhaahdo yaa qaraabo la'a dhinacaas abti ku leh ilma abti ku leh ayay ku leh awow ku leh qaraabo ku leh seedi ku leh waxaa laga yaabaa intaan halkan fadhida kulligood inay gacanta taagaan soo saas maaha kulligood gacantay taagayaan wax yar maaha dhinaca kalena waa sideedaba marka dadka noocaasi dad isdili kalena maaha mana kala tegi karaan halkanina waa magaalo Soomaaliyeed Hargeysana waa magaalo Soomaaliyeed qofka Soomaaliga ee tagay intuu dawlad ka tagay dawlad kale ma tagin wuxuu tagay magaalo Soomaaliyeed uu ka tagay magaalo Soomaaliyeed kula tagay dadkaas marka waa dad walaalo ah sina kuma kala ku karaan waxaan leeyahay wax kasto dhacay waa in laga nabdaa waa in laga wada fadhiistaa waa in maamulo haday yihiin heer maamul iyo haday yihiin heer dhaqan iyo haday yihiin heer bulsho guud ahaan in ay heshiiyaan oo waxyaabihii dhacay la isooga garaabo oo waxyaabaha aan fiicnayn dhinacyada labadaba aad ogtihiin inay ka jiraan la dhammaystiro oo maxaabiisuhu ka mid yihiin oo aan dhaqan Soomaaliyeed inoo ahaan jirin ayaa loo baahan yahay waxaan u baahannahay idinku haddii aad tihiin kuwii la dulmiyey kuwii wax loo geystay oo la dhibay si kastaba ha u qaraaraato horay sidaad in badan noogu sheegteen idinkoo sharaf leh inay idinka ay wax idinka bilowdaan oo idinku aad qaraarka dawada leh aad liqdaan ayagana waxaa laga rabaa emotionka inta la iska dhaafo realityga loo soo noqdo meeshan dawlad goboleed baa joogta waqooyi bari la yiraahdee dawlad goboleedka waqooyi bari ee ay dariska yihiin ay walaalaha yihiin in wixii lagu heshiiyey iyo gudiyadii nabadda ee labada dhinac laga dhisay iyo madaxda dhaqanka oo is wada taqaano wada ilmaaftii ilmeeday inay hawlahaas nagaga filaadaan haddii aan nahay dawladda federaalka way ku filayeen dadka labada dhinac waxaan leeyahay dadka saan qaraabadooda ee walaalaha ay noocaasi walaalayaal waxaan idin xusuusinayaa ama xaggaa jooga ama xaggan jooge aayad qur'aan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala suurat Muhammad ku sheegay fahal asaytum antum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaa'ika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum qaraaba goysnimadu dadka qaraabada ah inay isgooyaan oo ay waliba ay isdilaan waa dambi weyn waa arrin aan sax ahayn aayadda dib ha loo akhriyo ha laga fakaro labada dhinacba waan la hadlayaa waxaan leeyahay walaalayaal arrintaas waa in la soo gabagabeeyaa waana in nabadi dhacda intaas waxaan jeclahay in aan meeshaas ka iraahdo waxaan Soomaalinimo ahayna midnimo ahayna xal laguma gaaraayo midnimadana caasimadeedii waata marka waxaan rajaynayaa midnimadaas oo lagu adkeeyey nabad iyo walaaltinimo Soomaaliyeed ayaa waqooyi bari dan u ah Soomaali oo dhan dan u ah